مشرح مدحوينها حزب جمال علي حسين iyo fanaanada Saara halkan ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha Helsinki Fanta Airport. Musharaxa iyo fanaanadu waxay casuumad ka heleen jaaliyada Finland iyo xisbiga UCID waxaana si diiran ugu soo dhaweeyay gudoomiyaasha saddexda xisbi qaran odayaasha jaaliyada iyo dadweyne fara badan. Musharaxu waxa hadal kooban oo mahadnaq ugu jeediyay halkaasi dhammaan dadweynihii ka soo qayb galay waxaanu yiri soo dhaweynteedan halkan wadankan aan ku imid Finland waa mid aan ka helay casuumad jaaliyada reer Soomaaliland iyo taageerayaasha xisbiga UCID oo aan ka helay markii dambana oo markii hore anigu safarka waxaan ku imid wadanka Sweden oo dawladda Sweden casuumad ka haysteen marka maadaama labadii wadan isu dhow yihiin waxay noqotay markaa inaan laba cisho soo gaaray iyadana Finland oo aan jaaliyadana la kulmo baarlamaanka iyo dawladda qaar ka midana aan la kulmo ujeedaduna waxa weeyaan Soomaaliland la horumariyo Soomaaliland qadiyadeeda mar walba caalamka la tuso sidoo kale waxa uu ka hadlay safarka madaxweynaha Soomaaliland ku tagay dalka Turkiga kuna hambaliyay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa safarkii madaxweynaha ku tagay dalka Turkiga haddana xisbiga UCID waan soo dhaweynaa safarkaasi safar wanaagsan weeyaan dalka faa'iido u leh anigu sidaan arko waxa kale oo aan u arkaa arrinkii uu madaxweynuhu kala hadlay dawladda Turkiga ay ahayd wadada Ceergaabo waan soo dhaweynaynaa waa arrin wanaagsan markii horeba fikradayadu ahaa oo fikrad aan anagu wadanay oo aan u sheegnay meediahana hore uga sheegnay madaxweynaha in wadada Ceergaabo ay tahay wado aad iyo aad u dheer lacag 200 milyan oo dollar ku dhaweyna ay ku baxayso hadii la yiraahdo dhabarka urita Soomaalilandna ay ku adag tahay in cashuuraha dadka danyarta dusha laga saaro oo ay fiican tahay waxyaalaha noocaas oo kale in dawladaha waaweyn ee aan xiriirka fiican la yeelanayno inay naga caawiyaan in uu tagaaba heedo madaxweynaha saasan markii hore ugu sheegnay anigu marka haduu madaxweynuhu fikradeedii qaatay arrinkiina uu galay waan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay waa arrin wanaagsan waan ku hambalyeynaa marnaba aanu kamaana soo jeedin in wadada Ceergaabo la dhiso laakiin wadada loo marayay baan u arkaynaa markii hore wada aanan anagu bogin ahayd imankana laakiin wadadii hadii la qaatay waan taageeraynaa taas waa ka waxaa sidoo kale iyaguna hadallo soo dhaweynaa halkaasi ka jeediyay gudoomiyaasha iyo odayaasha jaaliyada Finland gabagabadiina waxa wafdiga loo kaxeeyay Hotel Sogos President oo la dejiyay isaga oo musharaxu isla xalay toole kulan casho sharaf la qaatay xubnaha xisbiga UCID Landisa Finland aadan Yusuf Ismaan on Cable TV Finland